السلام عليكم kusoo dhawaada muuqaal cusub oo xiiso badan maanta waxaan ka hadli doonaa application-ka dunida ku cusub ee TikTok kaas oo dhibaato far badan ka abuura wadamada caalamka kuwooda ugu waaweyn application-kan lagu baahiyo muuqaalada gaagaaban ee TikTok waxa isticmaala dad kor u dhaafaya 800 oo milyan oo ku kala nool dunida TikTok waxa laga leeyahay wadanka Shiinaha waana sababta ay dunida uga qaaday qawaafka abkan waxa iskala shirkadda Shiinaha ee xarunteedu tahay magaalada Beijing ee lagu magacaabo ByteDance horaantii 2016 ayaa si bilaaw hawada loo soo galiyay TikTok laakiin si dhameystiran ayuu hawada u galay 31 March 2020 luqadaha laga heli karo abkan ayaa gaaraya ilaa 40 luqadood wadamo badan oo kamid ah kuwa ay isku hayaan arrimo siyaasadeed wadanka Shiinaha sida Hindiya iyo Mareykanka iyo wadamada Yurub ayaa ku eedeeyay in dawladda Shiinuhu xaddo xogaha dadka isticmaala TikTok wadanka Hindiya oo ay darsiyihiin wadanka Shiinaha ayaa abkan ka saaray hawada in laga isticmaalo wadankiisa wadanka Hindiya iyo Shiinuhu waa daris wadaaga xuduud muran badan ka taagan yahay isbuucyo ka hor dagaal dhexmaray waxaa Hindiya looga dilay 20 askari dawladda Hindiya kaliya TikTok ma xayirin sidoo kale waxay xirtay 59 application oo laga leeyahay wadanka Shiinaha Hindiya ayaa sheegtay TikTok inuu halis ku yahay madaxbanaanida dalkooda wadajirka Hindida dhalinyarada Hindiya ayaa kamid ah kuwa ugu badan ee isticmaala aaladan TikTok hadda markaad joogto dalka Hindiya waxba ma soo gelin kartid aaladan TikTok sidoo kale wadanka Mareykanka oo isu arka inuu yahay dalka uu taliya dunida kale ayaa baarlamaankiisa waxa hor yaala qodob lagu xiri rabo TikTok isbuuca soo socda ayay codeyn doonaan baarlamaanka Mareykanku ma jecla in wadan aan asaga ahayn wax sameeyo tusaale inta badan social media-ha caanka ah sida Facebook iyo Twitter waxa laga leeyahay Mareykanku wuxuu sheegay TikTok inuu halis ku yahay ammaanka qaranka Mareykanka sidoo kale waxay ka baqayaan Shiinaha inay jaajuusto dunida inteeda kale si caadi ah ayuu uga shaqeeyaa laakiin wadamada Yurub oo ah gacanta midig ee Mareykanka waxa laga yaabaa in ay ganaxaan ama ay ka keenaan doodo aaladan TikTok waxyaabaha la yaab kale ee TikTok waa abka ugu fudud ee la isticmaalo kaliya waa adigoo soo degsada abka TikTok inta badan abkan waa mid khasaaradiisu ka badan tahay faa'iidadiisa anshaxumo waa waxyaabaha ugu waaweyn ee Hindiya u xirtay abkan haddaba ma laga yaabaa Soomaaliya in laga xiro TikTok qaabka kaliya Soomaaliya laga xiri karo waa in shirkadda ka xayirto dalkeena maxaa yeelay Soomaaliya wadan dhisan ma ahan mana joogo waqti oo xiro abka amba ababka shirkadaha social media-ha